Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawow channelka Garaadshi. Waxaynu muuqaalkeenan maanta kusoo qaadanaynaa Milky Way wadada caanaha. Waad la yaaban tahay, laakiinse muuqaalka ayaan kaga fasiri doonaa waxyaabaha ay yihiin inta aynan muuqaalkeena u gudagelin. Fadlan like saar muuqaalka. Haddii aad nagu cusub tahay, kusoo biir channelka oo calaamadda subscribe taabo. Gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaal kasta oo aan soo dhigno. Mahadsanid. Milky Way amba wadada caanaha waxaa lagu arkaa meelaha madow ee cirka xilliga habeenkii ah. Qoraxda iyo dhammaan meerayaasha ku hareeraysan ayaa qayb ka ah galaksiga loo yaqaano Milky Way. Galaxy waa koox ballaaran oo xiddigo ah, gas, boodh iyo cuf isku wada xidhan, waxayna ku yimaadaan qaabab iyo cabbiro kala duwan. Milky Way waa galaxy ballaaran oo xayiran. Dhammaan xiddigaha aynu aragno habeenkii ee ku aragno cirka waxay ku jiraan Milky Way, kuwaasi oo muuqda caano samada ka muuqda oo daatay. Waa sida loo bixiyey amba sida loogu bixiyey magaca Milky Way amba wadada caanaha. Wadooyinka caanuhu aad bay u badan yihiin. Waxaa jira daruuro amba buuro aad u waaweyn kuwaasi oo ku dhex yaala xiddigaha amba Milky Way. Aad ayay u adag tahay in la tiriyo tirada xiddigaha ee ku jira Milky Way amba wadada caanaha. Qiyaasta ugu fiican ayaa inoo sheegaysay in Milky Way ay ka kooban yihiin ku dhowaad 100 bilyan oo xiddigood. Galaxiga loo yaqaano Andromeda Galaxy oo lagu arko cirifka waqooyi, indho wanaagsan iyo cir aad u madow, waxay noo jirtaa qiyaastii 2.5 milyan oo sano iftiinka qoraxda ah amba iftiinka caadiga. Haddii aad la yaaban tahay iftiinka qoraxda si aad u leedahay maxaa loo adeegsan waayey kiiloomitir sida caadiga ee loo adeegsaday cabbirkan iftiinka. Runtii masaafooyinka isku jiraan walxaasi aad ayuu waaweyn, suurtagalna maaha in la adeegsado kiiloomitir. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan muuqaalka haddaad ka heshay like saar, kanaalkana kusoo biir, siina share garee si aad u gaarsiisid qof u baahan macluumaadkan. Mahadsanid.